garabka iyo gaashaanka markaan shalay u baahnaa markaan u baahnaa in wax lay baro markaan u baahnaa inaan waxaan xaq u leeyahay aan helo miyaan soo helay waa maya maanta ha ii baahanin qofka aan shalay baahidayda dareemin baahidu ma aha in cunto la is siiyo baahidu ma aha in ilmaha madaxa laga garaaco la dilo baahidan ku baahnaa haday noqoto inaad garaacdid ood dishid oodan waxba i barin ood xaqirtid ood mar walba hoosii dhigtid oo aadan dareemin waxaan xaq u leeyahay ana maanta dareemi maayo waxaad xaq u leedahay waxa kaliya xaqigu la waa waalidkaygii dhalay shaqsi kale oo u joojinaya ma jiro sababtaan ugu joojinayna naxariistarada aad shaqaysataan baan abaalkeedida idin gudaya waan iska keen cafiyo waxba idin ma haysto laakiin waxaan ogahay caruur badan oo ila mida inta gabadh ooyeysa qoraalkayga ku soo hoos qortay qoraal ayaa saakayga oohisay وعلوش إحمي تراها بريرتي رما يسوس العصي متر هذا إيدي رما يسوس العصي متر هذا إنابتي رما يسوس العصي متر هذا ولا شيء هو يضيع بعيد عليهم بيسوس العصي وسبحان الله والدين تان الله يا صوماليات والدو المها إنه باركون نقطة عشان لكن كما فكرتين بدن كنو أولاده هرتا waxay u baahan tahay marka yar yar tahay war ilmaha yar ee Soomaaliga ah ciidan baa looga dhigaa naakala la siiya inuu adeego naakala macnaha lagu siinaya maxay tahay waa inaad u xamaashadoodu adeegtid adoon awoodad ku xamaashid baan lahayn ilmahaaga markaad bixinaysid xaqi oo kugu lahaa xaqaad ku gabta berrito wala waxaad rabtaa inuu caasi noqon maantana silic buu ku soo korayaa adoo nool warkii agoon iyo rajayo ilaahay baday allah baday laakiin kan labadiisii waalid ba nool yihiin ee naakale la siinayo inuu u xamaalo loo siinayo isagoon itaal bahayn salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wayasmintiin oo idin leh wacan oo wanaagsan meel kastood ka joogtaan dunida daafaheeda soo dhawaada haddaad ku cusubtiin youtube channelkayga youtube-kii dee markaan qayliyey xoogaa waxaan dareemay inaan tol leeyahayo waxaad moodaan inuu sidii soo dhaamayo insha allah waynu tukubin doonaa waadna i garba istaagi doontaan youtube-kaygan yaasmintiinana soo booqda kii cusbaayan sameeyay yaasmiyaskana booqda labadaba kor soo qaada saaka waxaan rabaa falcelin inaan ka hadlo video aan shalay soo dhigay oo aan ka sheekeynayay yaraantaydii habareertay idii laysiiyey silcay soo marisay iyo ilmaha yar ee dadka kale la siinayo dhibaatada uu qabo iyo cadaabta uu ku dhex noolayaan cidina war ahayn caruuro badan oo Soomaaliyeed baa ku dhex nool cadaabtaas oo aan ogahay sababta ay ugu dhex nool yihiin waxay tahay Soomaalidu wadada naxariis lahayn waa dad badankoodu aan garan karin ilmuhu waqtiga uu yar yahay waxa uu u baahan yahay waxaan idinku soo dhigay waxaan ogahay qaar ila mida oo nolosha soo maray inay jiraan qaar imanka lagu sii wadan inay jiraan waa dad aan garan karin ilmuhu markuu yar yahay wuxuu u baahan yahay ilmuhu markuu yar yahay wuxuu u baahan yahay korinsho qurux badan barbaarin iyo waxbarasho dadkeenu badankoodu waa dad jaahiliina waana dad naxariis daran oo naxariis darro ku wada koray naxariis darrada ay ku wada koreen ilmaha xaqiisa lamaba siiyaba caruur badan baan xaqooda helin oo xilligii ay soo kacayeen ay u baahnaayeen waxay xaq u lahaayeen aanan helin sidii aniga oo kale xaq ilmuhu wuxuu kuugu leeyahay marka uu kacayo korinshihiisa koow inaad si qurux badan u korisid labo diiniyan iyo maadiyanba inaad bartid ilmaha inaan la adeegsan oon la lafajabin isagoo kacaya oon laga dhigin adeega waliba gurigooda intuu dhaafo guri kale transit ku ah naag aan dhalin gacanta loo geliyo oy ku adeegato oo aynan u naxin oo aanay u naxariisan oo aanay waxbarin ehliyada la sheegayo iyo ehelka la doondoonayo iyo waxaas I don't care qabiil waxba igama gelin baan idinku dhaahdaa waxba igama gelin because markaan yaraa xaqaygi ma aanan helin qofan xaqiisii helin markuu yaraa waxba kama gelin cidna anigu maanta cidna uma baahna ana lay baahan yahay laakiin shalay markaan u baahnaa garabka iyo gaashaanka markaan shalay u baahnaa in wax lay baro
markaan u baahnaa inaan waxaan xaq u leeyahay aan helo miyaan soo helay waa maya maanta ha ii baahanin qofka aan shalay baahidayda dareemin baahidu ma aha in cunto laysi siiyo baahidu ma aha in ilmaha madaxa laga garaaco la dilo baahidan kuu baahnaa hadday noqoto inaad i garaacdid ood i dishid oodan waxba i barin ood i xaqirtid ood mar walba hoosii dhigtid oo aadan dareemin waxaan xaq u leeyahay anna maanta dareemi maayo waxaad xaq u leedahay waxa kaliyo xaqigula waa waalidkaygii dhalay shaqsi kale oon u joojinayaa ma jiro sababtaanan ugu joojinayna naxariis darrada aad shaqaysataan baan abaalkeedida idiin gudayaa waan iska kayn cafiya waxba idinma haysto laakiin waxaan ogahay carruur badan oo ila mida inta gabadh ooyeysa qoraalkaygii kusoo hoos qortay qoraal ayaa saakayga oohisay oo caloosha i xumaysay tiraahda habaryartay ruma ay soo silcisay mid tiraahda eedaday ruma ay soo silcisay mid tiraahda inaabtiday ruma ay soo silcisay mid tiraahda walaashay hooyada yaabahay dhaleen baa ay soo silcisay waa subxaan allah waalidiintaan la hadlayaa soomaaliyeed waalidow ilmahaagu inuu baari kuu noqdaad jeceshahay laakiin kama fakertiin badankiinu awlaadu horta waxay u baahan tahay markaa yaryar tahay war ilmaha yar ee soomaaliga ah ciidan baa looga dhigaa naa kalaa la siiyaa inuu u adeego naa kale macnaha lagu siinaya maxay tahay waa inaad u xamaashadoodu adeegtid adoon awoodaad ku xamaashidba aan lahayn ilmahaaga markaad bixinaysid xaqii uu kugu lahaa xaggaad ku gabta berri toole waxaad rabtaa inuunan caasi noqon maantana silic buu kusoo korayaa adoo nool warkii agoon iyo rajayo ilaahay baday allah baday laakiin kan labadiisii waalidba nool yihiin ee naa kale la siinayo inuu u xamaalo loo siinayo isagoon itaal bahayn ilmaha aad naa kale u siinaysaan ee silica ku koraya idinkoo dunida ku nool ee cadaabta ku dhex nool ilaahay ka baqa oo carruurtiina aad dhashaan anigu qof dhintay dee ilaahay baa qaato dayac ilaahay baaba baday kaa oo in yar baa hesha wax naxariis leh agoon iyo rajo koriya agoon iyo rajo toona ma ixtiraaman laakiin waxaa jira kuwo waalidiintoodii nool yihiin oo naago kale la siiyo oo naagahaasi ay silciyaan oo ay cadaab ku mariyaan adduunka ilmuhu horta xaq muxuu u leeyahay ma taqaanin ilmuhu in aad macal gurigiina aad idinku leediin aad kaga shaqaysataan xaq maaha ilmuhu markuu yaryahay inaad barbaarisid weeye ilma la fajabinayo oo la silcinayo oo naxariis la tusayn qalbigiisa baqdin baa ku jiraysa anigoo weyn baan wax walba ka biqi jira wax walba because naagi iisoo bahdilaysay barbaa hadda ka hor igu tiri intaan ku waxbarasho ma helin oo sidan markaasay igu tiri sidan aad naag adagu tahay oo maasha allah bay tiri ilaahay caqli iyo fariidnimo kuugu deeqay bay tiri wallaahi ma ilooba gabadha hadalkeedii haddii waxbarasho lagugu dari lahaa bay tiri waxaan aaminsanahay inaad hogaamiye xaq wax ku hogaamiye aad noqon lahayd maba aan arag anigu carruurnimee weligay yaraan ma arag weligay hooyo inaad idin dhaho waad ila yaabaysaan because anigoo biyo abaa laygaga soo bilaabay cajuusad yahay habar yahay wallaahi iyo bilaahay iyo tallaahi baanan weligay yaraanu arag maalintan 16 jir ahaa naaga 50 jiraa laygu oran jiray waa facaaga oo sleegtir isku fac baa tihiin deetana qofka intaan tiriyo baan oran jiray 16 17 baan jiraa qofkaasina 40 50 jir waxba kaama weyna because waa waxaan isku qafilay waa wixii laygu soo yiri weligay yaraan ma dareemin weligay yaraan ma arag weligay wax ma doonin saa waxa la yiri qanuurti gacalaah yaraan hirta waxba ma doonaysid ma farxaysid maasajada gabdhahaas ii soo qoreen kuwa luuqa igala soo hadlay iyo kuwa qoraal iigu soo dhaafay maasajka YouTube-ka waa iga oohiyeen carruurteenu waa dulman tahay hooy gabadha Soomaaliyeed walaasha hadday tahay ilmahaaga adoo noolnaa kale ha siinin ilmihiina xaqiisa garta awlaadiina xaqooda garta madaxa laga garaaca naagan ilmaheeda dhirbaaxin oon ilmaheeda hadal xun u qoodhin baa bahdilaysa ilmihiina oo sidaa kaba hawlo dul maraysa oo baqtigiisa wasaysa oo waxba barayn oo nolosha ku cidhiidhinaysa waxba aniga igama gelin markaan idin dhaho waalidkay mooyaane cid kale naxariis darrada waa laysoo baray waana laysoo tusay markii lagu soo naxad wax u naxdaa naxariisba maan arage maxaa iga galay dadka hadda raadinaya waxba aniga igama gelin wax eheliya qaraabo la yidhaahdaana ma jiro waxaa la yidhi saxan ku gud saan ku gud bay Soomaalidu tiraahdaa
ilmaha loo naxariisto ee midda kale gabdhaha ilaahay gacantiina wuxuu soo geliyo ee ilaahay idin bado ha dayicinina ilmihiinana ha ka jeclaanina ha guumaysanina wax bara ilmuhu in wax la siiyo waxa uga qurux badan in wax la baro noloshiisa oo wax u noqdo hana ku adeeganina caruur ayrere ilaahay idin baday dayac la idin ku keenay ee la iska dhalay wallahi waxa gabadh ooyeysa caloosha ay gidoontay caloosha Soomaali mooyaan wax ilmo adoonsada adduunka kuma noolaan sidii Soomaalidu waa ummad ilmaha ka adag ilmaha ay adoonsadaan ilmaha silciyaan ilmaha la isu siinaya dhaa kale ilmaha la siinayo ha u xamaalo way ilmaha wax xamaali kara waxaan tamartiisa ahayn baa loo diraya saan idin sheegay habreerta idintay kadinka weelka ay soo direerisa banaanka ay dhigto kadinka horta ma taqaanin kadinka waxa la yiraahdaa geela lagu tiriyo boqolka geela boqol weel inta banaanka la soo dhigo ilma yaran 10 sano gaadhin oo boqol weel banaanka loo soo dhigay oo casumada lagu cunay miyuu dhiqi karaya waana idin sheegay intan saa ugu dhex wareegaalaysto marba mid meel ka qaado meel dhigo dhiqsi ama aqoonin banaagta waalan u tag jiray naagta waalan ba in xariisan jirtay oo dareemi jirtay in ilma yar mararka qaar aan ooyay inta u tagay laabta saa ii galin jirtay intay soo qabtay saa laabta ii galin jirtay marka si madaxay salaax jirtay aaminsan jirtay dadka walaalan baa kan xariis badan xitaa dadka miirka qaba Soomaalida ilaahay baan ku dhaartay ma ilma yar wax dhiqi karo wax qaban kara oo gidaar ilaa lagaga xirooday dadna xama aha dadkan Soomaalidu waa dad inkaari ku wada dhacday igama faa'iidin abartaydi saa ii gal jirtay iyaduna xamayn dhalin anigu iska ka cafiye laakiin ilaahay ma ku cafin doona waxaad soo cadaabtay may wajigayga xitaa dakharkaas aan qariyay suuli intaan isku xidhay iyago dilayabay igu soo furan sad eriyanayo dakharkan qaraxaasa ka dul tago qariyay waxay igu ooli jireen handaraabki bahalkiisi suuligeeda la eryanayaan galo soo rixo naag xoog weyn faq inta igu soo siisay bay halka iga galis markaas uu dhash yiri markaas aan dhigayga saa ugu meedha aawehe naagaan ku dhalin hadda joogtid dayac baad ka dhargaysaa ayaa sila hadaad yartahay dad weyntaayda marka caruurihiina walaalayaalow ama ha dhalina caruurta ama caruurtiina anaagaha kala siinaysaan ee wada dayacina wada ooyeysa mid waliba ku leeyay si waxa igu xanuun badneed gabadhii tiri habar yartay hooyaday la dhalatay ba ano 14 jir niman hayjad gacanta ii gelisay oo tabaqayna iga tagto markaasa gabadh kale oo hawiye igu dagaalantay bay tiri oo tiri ma ilmaha yar waa walaasheed hooyadeed iyo aabaheed dhaleen baa dhashay ma ilmaha yar bad nimanka uga tagsan markaas nimanka dhan waa runa waa caruur ka warama sila ay marayeen gabdhihiinu ka warama hooyo walbayba hoostaada eego ilmahaaga hooyo walbayba ilmahaaga eeg caruurta baari maaha baari ma noqon bay wada oranayaan Soomaalidu muxuu baari ku noqon xariisba kaamun helini ilman xariista tusay baa baari noqday ilaahay ka baqa rabbiga xishooda ama ha dhalina awlaadda iska daaya ama hadda dhashaan idinku korsada war ilmihii hooyadii aabihii la qaatay waa xaq laakiin ilma labadiisi waalid nool yihiin oo isagoo ilma yar la leeyahay naa kale ha u adeego macnuhu muxuu ma ilma adeega warniyo Soomaalida ya sharcigan ku wada qaaday adduunkan ka jira anaga 17 jirka waa laga baqaa waa laga leexdaa maxaa qaldan dadkan jaahiliinta ah naxariis ma leedina ilaahay naxariisteed ku soo dajiyo kuwa caruuraha loo geeyo silcinaya guumeysanayo idinkuna عقبة أولاد ويدكوا دعيسان سلعنيسان أولادي نانت كهليسان والله ناقول بقى المسيح عيسى إلمي هذا كيرسا عاصي كنا قنايو إنكار قبا كنا قنايا قلبي قاعد حنونة قبل إتراها ولا يسوس العيا مركان because أنا صور رفاضو صوص الحي يلا نضد هنتلو ما شاء الله يا كاميرا يا أنكو صور دحكوري بنصوص العصور رفاضو بنصوص العي أنصور رفاضو أو حقير كيهلو أنا نحق له هين نانهلو oo waxa qayrkay bartay aanan xaq u lahayn inaan barto oo waxa qayrkay xidhay aanan xaq u lahayn inaan xidho ehelku markaa muxuu yahay qabiilku muxuu taraa ii sheeg wuxuu tara qabiilku waxa ma taro intee ilmood baa la dulba intee gabadh iyo wiil yar baa lagu soo dhex dulba oo ehelkoodu soo dulmeen maxaa qabiilka ka galay qabiilkan baasay aakhirtii adduunka ba ku soo maxaa ka galay naftaadu qofkay neeftaadu ku raacisa raac naftaadana u noolow noloshaadana kor u qaad hana iska dhiibi nolosha dadka balwada leh baaba'aya intooda badan waa dad soo silciyay laakiin anigu fariid baan ahaa waxaan la xintami jiray kuwii u dulmiyay baan la xintami jiray dartood baanan balwadna u yeelan meel darana uga dhicin horumarka aanu sameeyay horumar wada sameeya dhexda xidha aday ka qaada dulliga iyo dulmiga raalli iga ahaada anoo kulul oo xanaaqsan baan soo galay waayo maasajada igu soo dhacaya iga soo oohiyo nafti ugu dhibay
gabdho wada silcayo un gabadh mid waliba tanaa lay mariyay tanaa lay mariyay tanaa lay mariyay ay leedahay ilma adeerayaalow ilaahay ka baqa dadka ilaahay caruurahoodii inta iska soo saareen naaga kala siiyayowna ilaahay ka baqa waa la idin weydiinaya maalinta qiyaame ilmihiinu xaq bidu kule waalidkuna xaq bule ilmihiinu xaq buleeyahay ilmihiinu xaq bidu kuleeyahay garta war khayr badan baa idin rajaynayaa ila soo kiciya baan ku YouTube channelka ku urura oo tuura please qof walbo idaawadow like tana isu kay hawlo isar please ina share garee please inta asxaan igu samee si YouTube kan igu soo kala kacana waan daalay saan wax walba uga hadlayay isna ma kala kacayo labada YouTube Yasmintina iyo Yasmiyaska labadaba ilmaada reyaalo igu soo dadaala oo kor soo qaada waa idin jecel I love you ilaahay xaq hayna wada tuso